saddex arrimood oo been ah oo ay dumarku caan ku yihiin. ku soo dhawow channelkayga. magacaygu waa Ibrahim Aadam. muuqaalkani waxaynu ku soo qaadanaynaa saddex beenood oo ay culimadu cilmiga bulshadu sheegeen in aanay marnaba dumarku run ka sheegin. saddexda arrimood oo dhammaantood ku xiriirsan ninka ay xiriirka jacayl leeyihiin ama saygoodaba. beenta koowaad, qaladkayga anigu waan qirtaa. waxaa hubaal ah in gabadha sheegta in ay caado u leedahay in ay qaladkeeda raaligelin ka bixiso in ay tahay gabar aan wax runa aan sheegin. waayo waxaa la aaminsan yahay in ay ninku ku beeran tahay ruux aaminsan sarrayn iyo hogaamin. sidaa awgeed qaladka laga galo oo la qiran waayo waxa uu ka qaadanayaa dareen nafsi ah oo ah in qofkaasi aanu qadarin ama uu doonayo in uu caqligiisa ku ciyaaro. waana sababta keenta in marka qalad laga galo inta badan ku ficil qaato in aanu ka harin ilaa ruuxa qaladka ka galay uu ka garaabo qaladkiisa. haddii kalena waxa uu bilaabaa argoosi. tijaabooyin kala duwan oo hore loo sameeyay ayaa daahfurtay in gabadhu haddii ay qaladkeeda qirato raaligelin fiicanna ka bixiso ay ninku ku adag tahay in uu qaadan waayo raaligelintaas. xitaa haddii uu ahaa qalad markii hore aad ugu weynaa. laakiin sida ay khuburada cilmiga bulshada ay sheegeen, gabadha sideedaba waxa ku adag in ay qirato qaladkeeda. haddii ay mar dhif ah dhacdana waxa ay jeceshahay in aanay raaligelin ka bixin. beenta labaad, anigu ma hinaaso ama ma masayro. dumar badan ayaa ku andacooda in ay masayr lahayn iyaga oo kaliya ka ordaya in ay arrintaas doldolool ku noqoto ama ninku uu si un uga faa'iidaysto. waxa ay sheegaan in ay nafahooda ku kalsoon yihiin, sidaa awgeedna aanay jirin sabab ay ninka uga shakiyaan in uu gabadh kale kusoo dul xareeyo, ama ay sayga laftiisa ku kalsoon yihiin oo aanay ka qabin wax baqdin ah in uu gabadh kale raadsado. khubarada cilmiga bulshadu waxa ay aaminsan yihiin in uu masayrku yahay dareen abuur ah oo ku beeran dhammaan noolaha. hinaasaha ama maseerka ugu xanuunka badanna uu yahay kan bini'aadamka ku dhaca. marka ay dumarka noqotana waxaa la aaminsan yahay in gabadhu marka ay aragto ninka ay xiriirka jacayl la leedahay ama xitaa kan ay dusha un ka jeceshahay oo aanay wax rasmi ah dhex marin, oo la jooga ama si dareen la u eegaya gabadh ama la hadlaya, in uu si sahal ah xakamaha naftu uga lumayo, una dhowdahay in ay ku kacdo ficilo laga yaabo in xitaa iyada nafteedu aanay iska filayn. midda ugu dambaysa ee saddexaad, anigu adduunyo iyo lacag ma daneeyo. waa dabiicad dumarku ka siman yihiin in ninka ay markasta dareensiiso in aanay haba yaraatee ee wax dan ah ka lahayn adduunkiisa iyo in ay maal ka hesho. sidoo kale dadkana ay taasi dareensiiso. laakiin waxaa hubaal ah in tiro badan oo dumarka ka mid ahi ay ninku ku qiimeeyaan hayntiisa iyo daryeelka dhaqaale ee ay mustaqbalka qoysnimo ka filan karaan. balse markii dhinac laga qiimeeyo, gabadhu waa ay ku saxan tahay in ay hubiso haynta iyo dakhliga dhaqaale ee ninka soo iyo kan uu samayn karo. waayo waxa aynu dareensannahay culayska dhaqaale ee qoysku soo kordhiyo iyo baahida lacageed ee la kowsanaya dhismaha qoyska. hoyga, caafimaadka, waxbarashada iyo qarashaad aanay noloshu ka maarmayn ayaa jira oo la'aantood nolosha qoysku adkaanayso. si kastaba ha ahaatee, waxa aan la diidi karin in gabdho badani ay ku talax tegayaan qiimaynta adduun ee ay ninku ka filanayaan. haddaba haddii aad gabari ka maqasho in aanay baahi lacageed ninku ku qiimaynaynin, wax badan ayaanan run ka ahayn. waxaan jeclaystay in aan intaas idinla wadaago. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan nagu soo biir oo subscribe noo saar. sidoo kale muuqaalkana like saar. mahadsanid.